gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID ayaa maanta munaasabad uu soo qaban qaabiyay ku shaaciyay 22 mas'uul oo u magacaabay xilal kala duwan oo heer gobol ilaa heer degmo ah waxaana munaasabadani ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID laantiisa gobolka Togdheer uqaal waxgarad iyo taageerayaasha xisbigaasi ugu horreynba waxa munaasabadani iyo sababaha loo qabtay shaaca ka qaaday afhayeenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee xiriirka saxaafadda gobolka Togdheer Mukhtaar Maxamed Jaamaca waxaana hadaladiisii kamid ahaa warbixinta xisbiga ee gobolka Togdheer gaar ahaan wadadii ugu maray magacaabista xilal ee aynu maanta magacaabi doono gudoomiyaha xisbiga UCID ee gobolka Togdheer mudane Aadan Xuseen Maxamed Mire iyo runtii sidii munaasibka ahayd oo uga fiirsaday magacaabista xilalka haday noqoto saami qaybsiga xilal ee gobolka Togdheer haday noqoto baaritaanka shakhsiyeed ee wasiirka uu igmaday inay u qabtaan xisbiga UCID sidoo kale waxaa munaasabadani intii ay socotay ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID gudoomiyaha awal bari ee gobolka Togdheer waxaanay dhamaantoodba dhaleeceen dusha kaga tuuran xukuumadda Soomaaliland iyagoo carabka ku adkeeyay cagajugleynta iyo caburinta ay ku hayso saxaafadda madaxa banaan iyo waliba falkii ay kula kacday mulkiilaha telefishinka Home Cable TV ayagoo arrimahaasi ka hadlaya waxay yiraahdeen hadlaya gudida xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee gobolka Togdheer afkeeda ku hadlaya waxaan halkan ka cambaaraynayaa cod dheerna aan ku sheegayaa waxa ka socda dalka maanta ay ku hayso xukuumadda talada haysa waxaa arkaysaan saxaafadii dalka oo la caburinayo habeen iyo maalin lana xirxirayo waxaa arkaysaan hantidii ummadda oo la lusanayo waxaa arkaysaan guryihii xaasasku ku jireen inta dabadda laga soo dhigo la iibinayo la xaraashayo halkaa waxaan leeyahay taas waa nasiib darro ku dhacday shacabkii reer Soomaaliland ee doortay xukuumaddan maanta jirta madaxweynaha Axmed Maxamed Silaay xukuumadayadu ma waxay diiday in xeerada reer Soomaaliland gacantooda geliso markee waxaa la dalka faqashadii baa helaya hadduu doono qaadanaya xukuumadda ruuxanta qaadanaya reer Soomaaliland deegaanka oo waxa la leeyahay Soomaaliland waa soo tartamay waa ayaan dar saxaafadda madaxa banaan haddii dalka saxaafadiisa la caburiyo oo la xiriiri geliyo mushkiladu waxay noqonaysaa dimuqraadiyadda كل هذا الدكتور الشيخ يا شيرنا يروح وحنا بتشيرنا ugu dambeyntii waxaa halkaasi kaga dhawaaqay xilalkii kala duwan ee uu magacaabay mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka gobolka Togdheer kuwaas oo kala shaqeyn doona howlaha shaqo ee xisbigaasi gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID Aadan Xuseen Maxamed waxaanu yiri xubnaha mudada ku soo shaqeynayay mudada ma soo wadnay waa 22 xubno xildhibaan Kayse Cabdi Raagi gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer uu ka maqan yahay gobolka Hargeysa ku yahay mudane Salmaan Maxamed Cabdi xogayaha gobolka Togdheer mudane Mukhtaar Maxamed Jaamac Xaaji Diiriye Mukhtaar Nagaara xidhiidhiyaha gobolka Togdheer ahna xogayaha warfaafinta gobolka Togdheer مدن أفتح محمود عوكي وضعيها أباب الكوكب كتبدأ مرو فيساء موسى الشيخ قسنتشي قبول لكوكب كتبدأ مدن حمسة سلبان محمد قدوميها قرب كدليرة كوكب كتبدأ مدن ياسين محمد آدم قدوميها قرب كدليرة كوكب كتبدأ مدن فيصل إسماعيل محمد رجعيها كرب كدليرة كرب كتبدأ مدن عبدي حسن عبدي رجعيها أباب كرب كدليرة كرب كتبدأ مدن مرو هلية محمود إسماعيل قدوميها كرب كهوان كرب كتبدأ مرو ديغا يوسف محمد قدوميها كرب كهوان كرب كتبدأ
مرو لك ياسين أحمد حغايها أباب كقرب كهوات دول كتبنا مرو عبادة ديرية حديدية كقرب كهوات دول كتبنا أنت وحقوق الحجر كي دول كتبنا وحكم كان قلنا أدور لباس الحنا دول كتبنا كم إن شاء الله تعالى يجينا وقصة الجنة وحنوك لنا حجر كي تجمع البرعاء قدوميها مرو خدغان محمد علي قدوميها تجمع البرعاء مدن البشير إبراهيم محمد مدن يكون تجمع البرعاء مدن محمد آدم محمد حقيقة تجمع البرعاء مدن إسماعيل دعالي محمد حديديها تجمع البرعاء مدن حسين حاج عبد أبكر حقيقة أبانه تجمع البرعاء مدن محمد عيسى عبد الله محمد كيف قدوميها كرم كدليرة تجمع البرعاء مدن محمد إبراهيم محمد قدومي يكون حقيقة كلام كدليرة تجمع البرعاء مدن عبد الشكور علي حفصي حديديها كلام كدليرة تجمع البرعاء مرو آمنة عرالم موسى قدوميها كلام كهوان تجمع البرعاء وبرواقة آدم محمد شبكة عالمية ضاد مرر نيوز مقالة برعاء.